waa qaybtii toddobaad qisadii la magac baxday caashiqii hooyan waayey hormuud baa u soo dhacay. hani waxay ku sigatay inay dhulka la dhacdo taleefankeeda carada ay u qabto liibaan darteed, balse waxay nafteeda ku dejisay kuna dhiirigelisay in sheekadooda ay caawaba soo gebagabayso. liibaan oo jahwareersan baa mar kale soo garaacay teelka hani. gacaliso sidee tahay? 24 saac oo cariiri ah baan soo maray, runtii ma aqaan sidaan maantoo dhan ahaa. codkaaga enerjiga jirkayga awoodda siiya ayuu ahaa qaaliyey. markuu intaas hadalka marsiinayo liibaan baa hani oo iscelin la ugu jawaabtay, saqajaan yahow isnacay, nuucaagoo kale tuugga ah miyaa jacayl wax ka garanaya? waryaa sheekadaada oo dhammi halhal baan ula socdaa. anigoo liibaan ahaa sidee wax kaa yihiin haniyey, yaa igu qaldaysaa ayuu yidhi asagoo indhaha taagaya. waryaa xaliimo sidaad u gashay waan la socdaa, ee mar damba hay soo wacan, wayna ku jartay hani. liibaan mar quraa dhulkii la wareegay, wuxuu u qaadan waayey sida hani u fahantay qorshihiisa. axmed iyo salmaan oo meel agtiisa fadhiyeen ayaa dhankooda la yaabay sida daqiiqad gudahood xaalka liibaan uu isku beddelay. axmed baa weydiiyey, saaxiib maxaa soo kordhay? wejigaaga murugo ayaa ka muuqatee. liibaan oo raba in aan la fahmin ayaa ku jawaabay, niman yahow wiil saaxiibkay ahaa geeridiisa ayaa la ii soo sheegay. axmed ayaa tacsi ahaan u yidhi, alle ha kaa samarsiiyo. isla markii axmed taleefankiisa ayaa soo dhacay, isagoo xishood ka muuqda ayuu dhahay, bannaanka ayaan ka soo laabanayaa, taleefan qaas ah ayaa ii soo dhacay. salmaan oo warkaas laf dhuun gashay ku noqday ayaa axmed kula kaftamay, nimaan la soo wici jirin haddii la soo waco, nimaan fadhi jirin ayaa fadhinaya. axmed se inta qoslay ayuu iridda ka degay. hooyo nadiifo oo xilligaas bannaanka dhar ku warnaa soo ururinaysa baa axmed ku tidhi, wiilkaygow intee u socotaa saacaddan? roobna wuu soo socdaaye. habo, qof baan arrin muhiima ka waraysanayaa oo isoo wacay ayuu ku jawaabay. axmed isagoo wadnaha garaacmaya ayuu hani wacay. meel uu hadal ka bilaabay isagoo ka fikiraya ayay ka qabatay. abbaayo sidee tahay? waan fiicanahay abboowe, taleefanka maxaad iigu demisay? ayay hani weydiisay. soori abbaayo, wiilal baa ii dhowaa, waan awoodi waayey inaan dhexdooda kugula hadlo, bannaanka ayaana u soo baxay. hani hadalka uu axmed dhahay wuxuu beddelay xaaladdii ay ku sugnayd, waxayna ku ilowday caradii haysay, wayna qosashay. maxaa dhacay abboowe? dadka dhexdooda gabar ma kula hadli kartid miyaa? haddaan suuqa kuu raaco hadhow armaad iga aamustaa ayay dhahday. kadib axmed wuxuu la wadaagay hani halbeegga iyo fikradda uu ka aaminsan yahay in gabar lala sheekaysto, weliba inuu dareen ahaan ku dhiiran jirin inuu xitaa 2 kelimad gabar uu ku darsado, iska daaya inuu la haasaawo tago, iyo xaaladdiisa siday isku beddeshay markuu iyada la kulmay. hani sheekada axmed ayaa ku reebtay yadidiilo iyo dareen hor leh oo ay dhankiisa u qaaday. iyadoo rabtay inay qalbiga u dejiso ayay tidhi, abboowe macaane, wakhtiga isagaa wax kasta sixi doona, niyaddaada khayr u sheeg, wax kastaa way hagaagi doonaan, aniga i aamin. axmed wuxuu dareemay naxariista hani ka muuqata. daqiiqadihii uu la sheekaysanayay xitaa wuxuu dareemi waayey dhaxanta iyo roobka mahiigaanka ah uu dhex taagnaa, isagoo meel gabaad ah aanan gelin. mahadcelin iyo isu soo dhowaasho sheeko kadib waxay hani u sheegtay axmed in beri galab ay suuqa u soo adeeg doonanayso, alaab kalena ay soo iibsanayso, waxayna ka codsatay in 4:15 ama 10 saac iyo bar galabnimo ay ku kulmaan isla maqaayaddii ay sheekadooda ka bilaabatay. liibaan dhankiisa habeenkan uga xun noloshiisa sooma marin. maadaama hani ay qorshihiisa fahantay, wuxuu ku qanciyey naftiisa inuu weli jaanis haysto, wuxuuna qorshaynayaa inuu dib u raadiyo gabadhii uu qadka ka bartay, galab horena uu u gembiyey. liibaan markii uu gabadhi wacay, wax aan caqligiisa aqbali karin ayuu kala kulmay.
La soco qaybaha kale. Qaybtanse maxaa kaaga baxay? Hadduu jiro saaxiib qaas oo aad jeceshahay inuu qisadan kula akhristo, halkan uga wac oo mention dheh. Like saar page-ka, siina share garee. Si aad ula socoto macluumaadka uu soo bandhigo page-kan, ugu horreyn waxa aad raadinaysaa magaca page-ka. waxaadna ku raadinaysaa Axmed Cabdikariim Waaya Arag. kadib waxa ku soo bixi doona sawirka page-ka. kadib waxa aad ku dhufanaysaa magaca page-ka. gudaha ayaadna u sii geli kartaa page-ka. kadib waxaad ku dhufan kartaa calaamadda like si aad ula socoto mar walba macluumaadka uu page-kan soo bandhigo. waxaad kaloo calaamadda default ku bedeli kartaa favorite si aad u noqoto qofka u horeeya ee daawada macluumaadka page-ka. Page-kan wuxuu had iyo jeer kuu soo gudbinayaa sheekooyin iyo muuqaalo ku cajab geliya.